ugu horreyn Sweden waa dal dhaca waqooyiga qaaradda Yurub wuxuuna ka mid yahay dalalka Scandinavian-ka ama Nordic. Scandinavian iyo Nordic si guud waa isku mid oo macnuhu waa waqooyi, laakiin Scandinavian ahaan saddex dal ayaa si gaar ah u jecel in loogu yeero, waana Denmark, Norway iyo Sweden. halka Nordic si buuxda la isugu dhaho dalalka Denmark, Norway, Sweden, Finland iyo Iceland. haddaba Sweden waa dal dhul ahaan dhaca jasiirad lamoodka Scandinavian-ka ee waqooyiga Yurub, wuxuuna xad la wadaagaa Norway iyo Finland. waxaana Denmark iyo Sweden isku xiraa bridge-ka ama buundada Öresund oo ah bridge isugu jira waddo caadi ah iyo waddo tareen. waana bridge-ka ugu dheer Yurub ee isugu jira waddo tareen iyo waddo gawaaridu adeegsato. waa bridge si cajiib ah loo qaabeeyay, wuxuuna leeyahay qayb biyaha hoostooda marta si maraakiibtu u adeegsato marinka Öresund. waa fikrad soo tixneed ilaa qarnigii 20aad, balse waxaa lagu guuleystay oo xariga laga jaray 1 Julaayo ee 2000. Sweden waa dalka shanaad ee ugu weyn Yurub. afarta dal ee ka weyn waa Russia, Ukraine, France iyo Spain. Sweden dhul ahaan waa dal weyn oo ku fadhiya bad gaaraya ilaa 450,000 oo kiiloomitir isku wareega, balse waxaa ku nool 10 milyan, wuxuuna ka mid yahay dalalka cufnaanta yar marka la eego tirada dadweyne ee ku nool. si kale haddaan u dhahno, waa mid ka mid ah dalalka ugu cidlada badan Yurub, waana dalka afraad marka la eego tirada dad ee ku nool. halkii kiiloomitir ee isku wareega waxay ku soo aadaysaa 23 qof. dalalka ka cidlada badanna waa kuwa waqooyiga Yurub la dhaca, waana Iceland, Norway iyo Finland. dhulka Sweden dadka aad uguma badna, laakiin waa hooyga kaymaha oo in ka badan kala bar oo dhulka Sweden ah waxa ku daboolan kaymo, halka ilaha qaar ay yiraahdaan 70% oo dhulka Sweden ah waa kaymo. waana sababta uu dalkan uga mid yahay dalalka ugu dhoofinta badan waxyaabaha laga sameeyo geedaha dhaadheer ee kaymaha. halka ugu sareysa dhulka dalkan waa buurta Kebnekaise. webiga ugu dheerna waa kala Alvin, sidoo kalena waa webiga ugu dheer Scandinavian-ka. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu harooyinka badan oo ilaa 22,000 oo haro ayuu leeyahay, waxaana harada ugu weyn ee dalkan lagu magacaabaa Vänern. dalkan waa midka ugu jasiiradaha badan caalamka oo ilaa 267,000 oo jasiiradood ayuu leeyahay. dabcan jasiirad marka la qeexayo waa dhul ay 4 jiho biyo ka xigaan, sidaas daraaddeedna dhulal badan oo yaryar oo jasiirad ah ayaa jira. jasiiradda ugu weynse marka la joogo Sweden waxaa lagu magacaabaa Gotland. dalkan marxalado taariikheed oo kala gedisan ayuu la soo jaanqaaday, waxaana la tilmaamaa taariikhda aadanuhu ee dhulkan inay u laabanayso 12,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga. waxaana la tilmaamaa dadka asalka ah ee dhulkan loogu yimid inay yihiin dadka la yiraahdo Sami. labeynta taariikheed ee dalkan waa ay badan tahay, waxaana ka xusi karnaa xilligii Viking. waa dad ahaa badmaaxayaal arrimo badan ku caan ah sida dagaalka iyo burcadbadeednimada, waxayna ka soo jeedeen Scandinavian-ka oo Sweden ka mid tahay. waxayna jireen qarnigii 8aad ilaa dabayaaqadii qarnigii 11aad. qoraallo iyo aflaan badan ayaana laga sameeyay. qarnigii 11aad diinta Kirishtaanka ayaa dhulka Sweden si weyn u gaartay, waxaana laga bilaabay dhisidda kaniisado badan. qarnigii 14aad Sweden waxay ka mid noqotay midowgii Kalmar oo boqor reer Denmark ah uu xukumayay, waxaana sidoo kale midowgan ku jirtay Norway. Sweden markan waxay u muuqatay ismaamul gaar ah, balse waxaa saameyn ku lahayd Denmark. 1523 Gustav Vasa ayaa bilaabay dagaal gobonimo doon ah oo Sweden ku doonaysay inay Denmark kaga madax banaanaato. kadib markii Sweden ka hoos baxday xukunkii Denmarkna waxaa aasaasantay boqortooyada Sweden, waxaana boqorkii ugu horeeyay ee Sweden yeelato noqday Gustav Vasa. qarnigii 17aad boqortooyada Sweden waxay noqotay mid xoogan, waxayna isku balaarisay Yurub. laakiin bilowgii qarnigii 18aad ayay awoodeedu hoobatay, dhul badanna ay weysay kadib markii uu Ruushku ku jabiyay dagaalkii Great Northern War. qarnigii xigay Sweden waxay dhexdhexaad ka noqotay dagaaladii Napoleonica, waxayna qarnigii 19aad ku naaloonaysay neecaw nabdoon iyo deganaan siyaasadeed. waxayna Sweden bilowday dhisidda warshado ka qayb qaata kobaca dhaqaalaha. dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay qarnigii la soo dhaafay, Sweden waxay ka qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ah. xitaa dagaalkii qaboobaa siyaasad dhexdhexaadnimo ah ayay qaadatay. neutralism-ka ama dhexdhexaadnimada ay muddada ku soo caanamaashay Ruushka ayaa maanta u malabsanaya inuu soo afjaro, oo Sweden waa mid aad ugu dhow dhanka NATO. kadib markii uu Ruushku ku duulay Ukraine, Finland iyo Sweden si halhaleel ah ayay u gudbisteen codsiga ku biirista ururka NATO. Finland sanadkii hore ayay ku biirtay, laakiin Sweden uma suurtagelin
oo waxaa hortaagan oo ay weysan tahay ogolaanshaha dalalka Turkiga iyo Hungary. Dowladda Sweden waxay shacabka ugu baaqday inay dagaal u diyaar garoobaan isla markaana garowsadaan in ay soo dhamaatay 210 sano oo ay Sweden nabad ku naaloonaysa. dalkan waxaa ka jirta boqortooyo soo jireen oo dastuuri ah. boqorka dalkan ayaana ah madaxa ugu sareeya dalka, laakiin boqortooyadu ma ahan mid awood badan leh oo waa mid uun la maamuuso oo dalkan wuxuu leeyahay ra'iisul wasaare xukuumadda hogaamiya iyo baarlamaan dastuuri. dalkan wuxuu ururka midowga Yurub ku biiray 1995 laakiin ka mid ma ahan dalalka Yurub ee adeegsada lacagta euro oo dalkan wuxuu leeyahay lacag u gaar ah oo lagu magacaabo Swedish krona. dalkan GDP-giisu waa ilaa $500 bilyan oo dollar, wuxuuna dibadda u dhoofiyaa sida mashiinada, gawaarida iyo alaabta laga sameeyo geedaha kaymaha. shirkadaha caanka ah ee dalkan laga leeyahayna waxaa ka mid ah IKEA iyo Volvo. saddexda magaalo ee Sweden ugu weyn waa Stockholm, Göteborg iyo Malmö, laakiin caasimaddu waa Stockholm oo ah magaalo dhacda ilaa 14 jasiiradood waxaana isku xiraan ilaa 57 bridge. magaalo madaxda dalkan waxaa laga helaa dhismaha ugu weyn caalamka ee haaf-kurowga ah. goobaha kale ee caanka ku tahay caasimadda dalkan waxaa ka mid ah matxafka Vasa ee lagu booqdo markabka caanka ah ee quusay 628. sidoo kale waxaa la booqdaa matxafka Nobelka, halka qadiimka ee lagu magacaabo Gamla stan, qasriga boqortooyada iyo boosteejada tareenada ee dhulka hoostiisa dhacda ee magaalada Stockholm. waana mid 90% lagu xardhay farshaxano kala duwan. sidaan soo xusnay tirada dadweynaha dalkan waa ilaa 10 milyan, wuxuuna dalkan ka mid yahay dalalka Yurub ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin. dadka asalka ah Sweden loogu yimid waa dadka la yiraahdo Sami. sidoo kale dadkan waxay ku nool yihiin Finland, Norway iyo Russia, waxaana tiradooda lagu sheegaa ilaa 75,000. waana dadka asalka ah ee kaliya ee midowga Yurub laga aqoonsan yahay. luqadda rasmiga ah ee Sweden waa luqadda Swedishka, waana luqad Germanic ah oo ugu yaraan 10 milyan oo ruux ay ku hadlaan. Hej! Johanna heter jag och idag kommer jag att prata mitt modersmål som är svenska. waxbarashada iskuulada muddo 10 sano ah waa waajib. dadka qaangaarka ah ee dalka Sweden-na 99% waa kuwa wax aqrin kara waxna qori kara. waxaa la sheegaa in ka badan kala bar oo dadka dalkan ah inay haystaan diinta Kirishtaanka, laakiin Sweden marka tirada dadkeeda la eego waa dalka ugu badan ay ku nool yihiin dadka aan wax ilaah ah aan aaminsanayn. laakiin sanadihii dambe wuxuu dalkan qaabilay ajaanib badan oo la saaxiib ah saameyn diineed iyo mid dhaqan. cuntooyinka Sweden laga cuno waxaa ka mid ah köttbullar, falukorv iyo kanelbullar. dadka dalkan waxay aad u xiiseeyaan dabaaldegga la yiraahdo Midsummer. marka Christmaska laga yimaadana waa dabaaldegga labaad ee ugu weyn ee dalkan ka qabsooma. waxay u dabaaldegaan xilliga kuleelka ee u bilowda. dabcan Sweden waa mid ka mid ah dalalka ugu qabow Yurub, dhanka waqooyina dadka kuma badnaa oo waa dhul aad u qabow. waxaana tuulada Jukkasjärvi xilliga qaboobaha laga dhisaa hotel baraf ka samaysan, waana hotel sanad walba marka la gaaro xilliga qaboobaha dib loo dhiso.